tuulo ayaa waxaa ku noolaa nin makaanig ah, magaciisana waxaa la oran jiray Cabdulaahi. Ninkaas makaaniga wuxuu ahaa nin daacad ah, wuxuuna ka shaqayn jiray meel garaash ah. Sida caadada ahna wuxuu soo aadi jiray subaxii garaashka, habeenkiina wuxuu u hoyan jiray gurigiisa. Markuu gurigiisa yimaado wuxuu u wici jiray xaaskiisa, "Caashoy kaalay, lacagtan kaala qaad ee waxaad gelisaa qaanada." "Waa maxay lacagtan?" "Waa lacag aad u yare. Waxaan u maleynayaa shaqadan inay tahay shaqo aan lacag fiican aada ka helaynin. Deriskeena fiiri, reerkan deriskeena ah ninkeeda wuxuu gadaa caano, wuxuuna ku daraa biyo, wuxuuna ka helaa lacag aad u fiican. Laakiin adiga waxaad ii keentaa lacag yar. Lacagtan yartaa aniga waxba iima tarayso, ee adiga waa inaad wax sameysaa. Aniga si daacad ayaan u shaqaystaa, ee wax khayaano ama soo shaqeeyo. Lacagta yar aan ka soo qaato meesha shaqada ayaan ku keenaa si aan guriga biilkiisa ugu dabarto, ee ma doonayo inaan soo shaqaysto lacag xaaraan ah. Hadday sidaas tahay lacagtaada adiga hayso, aniga ha ii keeni, anigana waxaan aadayaa guriga hooyadeyda." Aniga ayaa fikrad keeni doona ee gacalis ha xanaaqin. Isla markiina waagii ayaa baryay. Alla aniga maanta haddii xaaskayga aan soo shaqayn waayo lacag badan way iga tegaysaa, waxay aadaysaa guriga hooyadeeda. Waa inaan aniga wax sameeyaa. Markaas kadib ayaa waxaa u yimid nin mooto wato. "Haye walaal see tahay, maxaan kaa caawiyaa? Ee cagtaa iga banjartay, waxaan rabaa inaa ii sameyso. Haye halkaas fadhiiso, aniga ayaa kuu sameynaye." "Walaal cagtaada way dilaacsan tahay, lama aaryan karo, waa in cagta dhan la bedelaa. Saakay markaan gurigeyga ka soo baxayo cagtayda way fiicneed, ee hawo yar ayaa ku jirtay, ee hadda sidee ku banjartay." "Aniga waxaan ka ogahay walaal, haddii aad doonaysa in cagta lagaa bedelo ii sheeg." "Waayahay, meeqaa lacag ayaa ku baxaysa in cagtaasi la bedelo?" "Cagta waxaa lagu bedelayaa 400 oo rubi." "Waayahay, waddo kale iima bannaana ee ii samee cagta." Asagoo faraxsan ayuu cagtii ninkii u bedelay. Markuu dhammeeyey kadib ayuu ninkii lacagtii ka qaatay. "Maanta waa ii farxad. Cag oo keliya ayaan bedelay, waxaana ku helay 400 oo rubi oo lacag ah." Cabaar yar kadib ninkii waxaa u yimid gaari. Markaas ayuu wuxuu ku yidhi ninkii gaarigi lahaa, "Walaal waxaan u maleynayaa gaarigayga cagtiisa inay aaryo baxday, ee aaryo iigu shub." "Waayahay walaal, hadda ayaan kuu sameynayaa." Ninkii makaaniga ah wuxuu ku fikirayaa inuu ninkaana banjariyo cagtiisa si uu uga helo lacag badan. Asagoo aaryo bixinaya cagtii ayuu ninkii meeshii ka dhacay. Markaas ayuu wuxuu yidhi, "Alla dhabarka, alla waa dhintay, alla waan jabay, alla ma nooli." "Wariyaa maxaa kuugu dhacay? Maxaad ku sameynaysa gaarigayga cagtiisa? Miyaad haleynaysay?" "Aniga waxba kuma sameynaynin gaarigaaga cagtiisa, ee waxaan fiirinayay inay banjarsan tahay." "Wariyaa adi maa banjarinaye, mise cagtayda inay banjarsan tahay ayaa fiirinaysay?" "Wariyaa waan ogahay birtaas aad gacanta ku haysa inay tahay birtii gaariyaasha cagahooda lagu banjarinaye, ee maxaa sidaa iigu samaysay? Walaal iska kee cafi, hadeertaan firii ayaan kuugu sameynayaa cagtaade." Ninkii cagtiisa ayuu bilaash ugu sameeyey. Kadibna ninkii cagta markii loo sameeyey wuu iska baxay. Wuxuu yidhi, "Maanta khasaare ayaa isoo gaartay, waxaana iga khasaartay 200 oo rubi." Wuxuu yidhi, "Fikradan cagta la banjarinayo iima shaqaynaysa, ee maxaan sameeyaa?" Kadibna wuxuu ku fikiray inuu soo qaato musmaaro uu ku daadiyo dhulka gaarigii soo mara si ay cagta uga banjarto. Habeenkii wuxuu ku daadiyey musmaaro badan dhulka si ay gaariyaasha cagaha uga banjaraan. Subaxdii markuu waaga baryay ayaa waxaa soo maray gaari. Markaas ayaa cagtii ka banjartay. Ninkiina wuxuu is dhahay, "Alla fikradeyda way shaqaysay, waayo gaarigan waxaa ka banjartay cagta." "Walaal waxaan u maleynayaa inuu gaarigayga cagta ka banjaray, ee ii fiiri." Wuxuu yidhi, "Haye hadda ayaan soo fiirinayaa isug." Maalintaas oo dhan wixii ka dambeeyay wixii meesha soo mara oo gaari ahba cagta ayaa ka banjaraysay.
asagana sidaas ayuu wuxuu ka helaya lacag aad u badan. Wuxuuna dhahay maalintan waa maalin farxad leh. Waligay intaan noolaa lacag intaan la eg ma shaqaynin. Hal maalin ayaan waxaan shaqaystay lacag zaa'id u badan. Hadda waa habeen, waa inaan gurigeyga aadaa. Maanta xaaskeyga markay lacagtaan aragto aad ayay u farxaysaa. Gurigiisa ayuu aadayaa. Markuu gurigiisa taga ayuu xaaskiisa wacaa, Caashoy soo carar. Maanta ma malaysan kartid waxa lacag aan soo shaqeeyay. Xaaskiisii oo soo ordeysa ayaa si lama filaan waxay igu dhacday dhulka. Alla madaxa i jabayay, alla ma nooliyey. Alla ku aaway Cabdulaahiyow. Ma nooli, madaxayga waxaa ka socda dhiig badan. War soo cararey. Kadib wuu u imaanayaa, maxaa kugu dhacay Caashooy? Siday kuu gaareen waxaan? Yaase ku daqray. Waxaan u malaynayaa madaxayga inuu soo gaaray dhaawac saa'ida markaan halkan ku dhacay. Kaale isbitaal geey, haddii kale aniga ma sii noolaanayo. Waayahay, hadda ayaan dhakhtar kuu kaxaynayaa. Intaadan ku wadin ka hor, waxaan ku weydiinayaa ma wax lacag ayaa meel ku qarisay oo haysaa? War hadda oo kale miyaa lacag lisweydiiyaa? Maya, waxaan isleeyahay haddii wax gaaraan inaan ku ogaado lacagtaas inaad hayso. War wasaqyo, waxaad u moodaa inaan dhimanayo miya? War soo bax isbitaalkaygii, waan xanuunsanayaa. Kadib xaaskiisa wuxuu u sii qaaday cisbitaalka asagoo oo mooto ku sida. Markuu sii marayay dukaankiisa agtiisa ayaa waxaa ka bajartay cagtii mootada. War maheedha, maxaa ku dhacay mootadan? Waxaan u malaynayaa inay mootada cagta ka banjartay. Maxaa banjariyana? Halkan waxaa yaala musbaaro. Waxaan u malaynayaa inay musbaaradaas banjariyeen. Alla Ilaahayow, yaa waay xilligan waxa meesha musmaarada inoo dhigay. Aad ayay u habaaraysaa qofkii musmaarada meesha ku daadiye. Wuxuu dhahayaa jooji habaarka, qofka musmaarada meesha ku daadiy waa aniga. War heedha, maxaad ugu daadisay musmaarada meesha? Miyaad waalan tahay? Alla Ilaahayow, ha aqbalin habaarkayga. Laakiinse maxaa kugu kalifay inaa musmaarada meesha ku daadiso? Naaheedha, ma ilowday? Soo adiga maada ii dhihin lacag badan inoo keen. Sidaa darteed ayaan u sameeyey. Kadib xaaskiisa wuxuu ku soo qaaday gaari gacan. Markay cabaar soo socdeen ayay waxay soo gaareen goobtii dhakhtarka. Dhakhtarkii markuu arkay xaaladda Caasho ayaa wuxuu yiri, gabadhan waxaa ka baxay dhiig badan. Waxaa loo baahan yahay dhiig. Ayadii ayaa waxay tiri, wixii dhiig aad u baahan tahay waxaad ka soo shubaysaa ninkeyga. Ninkan asagaa nin tabar yar annaga ma ka shubi karna dhiig, waa inaan dhiig meel kale kaaga raadinaa. Maya, sidaas ma aha, aniga ma rabo inaan dhinto dhakhtar, ninkan iiga shub dhiiga. Dhakhtarkii wuxuu u diray nin shaqaalaha ka mid ah cisbitaalka si uu dhiig uga soo qaado. Nasiib xumo, ninkii markuu dhiigga soo qaaday ayuu wuxuu soo maray garaashkii iridiisa. Kadibna cagtii ayaa ka bajartay, dhiiggiina wuu dhacay, halkaas ayuu ku daatay. Dhinaca kale, cisbitaalkiina weli waxaa joogta Caasho oo xanuunsanayso oo dhiiggeedina aad u sii daciifay. Walaal, maxaa kuugu dhacay oo saan ugu walwalsan tahay? Soo ma ihid ninkii garaashka ka shaqaynaya oo makaaniga ahaa oo cagta gaarigayga banjarinayay? Maxaa sidaan dhan ugu walwalsan tahay? Maxaa kuugu dhacay? Walaal, xaaskayga ayaa waxaa soo gaaray dhaawac, waxayna u baahan tahay dhiig. Anigana waxaan sameeyay qalad aad u weyn. Aniga waxaan ku daadiyay musmaaro dhulka si aan dadka gaariyaasha uga banjariyo. Ninkii dhiigga soo wada ayaa dhiiggii ka dhacay, kadibna wuu ka daatay. Dhib ma laha walaal, aniga ayaa dhiiggayga ku siinayo dhiiggayga qaado. Walaal, waad mahadsan tahay. Ma iloobayo asxaanka aad ii fashay weligeyga. Looma baahna aniga inaa i tiraahdo mahadsanid. Musmaarada jidka aad ku daadisay ka leexi. Waxaas oo kalena dib dambe ha u sameynin walaal. Caasho way soo fiicnaatay, idii ninkeedana waxay soo aadeen garaashkii si ay uga aruuriyaan musmaaradii ay dhulka ku daadiyeen. Ninkii markaa kadib wuxuu sii watay ganacsigiisa si daacadnimo ah. Maalin dambena muu sameynin khiyaanadii uu sameeyay oo kale.